qaar ka mid ah qurba joogta degmada Yogori ee gobolka Sool oo la soo xiriiray telefishinka caalamiga ah ee Som News TV ayaa si buuxda u taageeray go'aanka dhaqanka beesha Jaamacsiyaad ee ku aadan seeraha degmada Yogori waxaana qurba joogta oo ku kala nool daafaha caalamka ay xuseen in la qaato go'aanka madaxda dhaqanka sidoo kale waxay ku baaqeen inaan arrimo nabadgelyo xumo laga abuurin deegaanka kaga nool daafaha waxaan leeyahay waan soo dhaweynayaa maantii dhooti shirkii lagu qabtay magaalada Yogori ay ka hadleen ismadayda garboodkayga garaadkayga ummadayda halka joogta dumar iyo rag iyo ciyaal iyo ciroole waxaan ku taageersanay waxa ay diideen baan ku taageersanay anigoo ah qurba joogta ka mid North America waxaan leeyahay guul iyo gobonimo ni ognahay insha Allah garabkiinan taaganahay halkaasna ka wada halkaasna waxa jeceshiin waad gaaraysaan waxaan leeyahay dadka deegaanka u dhashay ee maamulada u shaqeeya war maamulka waxaad ugu shaqeysaa dadkaaga laakiin ha ku dhibaataynin intaas aadna ku leeyahay haday ku daaqayso waxaan leeyahay isnimadayda iyo garaadkayga iyo ummadayda halka joogto hiiliyahow waan ina garab taaganahay guul iyo gobonimo waan wada salaamaya dhamaantii anigoo ah Maxamed Xasan Shini waxaan rabay inaan ka hadlo arrinka seeraha Yogori indhoweeda ka laga waday oo dadka isimada iyo nin garboodka waxgaradka iyo xoolo dhaqatada dadka deegaanka ka soo jeeda asal ahaan arrinkaasi ka soo horjeesteen oo ahaa seerahaas laga wado nawaaxiga Yogori oo maamulka Soomaaliland uu dabada ka riixayay waan ku taageersanahay haddaan qurba joognahay go'aankay isimadayada iyo xoolo dhaqatadayada iyo dhammaan waxgaradka deegaanka ay ka soo jeeda arrinka go'aanka ay ka gaadheen waan ku taageersanahay waxaase la yaab leh iyadana midda kale oo ah seero dad loogu nasteexayaan arki jirnay seero dad lagu khasbayo saaka ku horumaana maqal waxaana ilaahay hadarto calaamad su'aalkan saaran seerahaas waxay tahay war dhulka gobolka Sool intaasoo deegaan baa laga sameyn karaa seerahaas ama Tareex ama Xudun ama Kalabayd calaykum magacaygu waa Waris Axmed waxaan salaamayaa beelweynta Jaamacsiyaad dal iyo debed waxaan soo dhaweynayaa shirkii maalintii dhoweed magaalada Yogori ka dhacay waxgaradkayaga cuqaashayada la isugu yimi go'aankii garaadkayagu ka qaatay baan soo dhaweynaynaa taageersanahay waxaan leenahay dadka maamulada ku jira hadday wasaarad joogaan iyo hadday deegaan joogaanba inayna dadka ku dhibaataynin ixsaanada ay iyagu sitaan ee maamulada kale u sitaan qofku dalkiisa ama dadkiisa ayuu magac ku leeyahay waxna ku qaban karaa awoodna ku leeyahay laakiin hadduu dhibaato u horseedo halka caqabad baa ka imanaysa waxaan leenahay dal ahaan iyo dad ahaanba dadka iyaga in la dhibaateeyo ma rabno Jaydo Dimer waxaan ka soo hadlayaa gobolka California ariga Mareykanka waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin seera oo laga sameeyo gobolka Sool degmada la dhaho Yogori arrintaas oo seera runtii seeraha markii aan dhan walba ka baaray oo xagga diinta iyo xagga international law iyo xagga what's on the ground oo dhulka ka jira saddex qodob ama afar baan ku soo ururiyo waxa ila muuqata wax impossible waxaan macquul ahayn waxaan waqtigan loo baahnayn sideedaba haba yaraatee number 1 marka xagga diinta ka baaray waxaan soo ogaaday diintu inay ogoleynba xaaraan u taqaanba runtii wadadana waa la weydiin karaa waana laga baari karaa diinta waxaan soo ogaaday diintu inaysan ogoleynba saddex waa la wada leeyahay diintu asalba waa nolosha asalkeeda waa basic life oo saddex waa la wada leeyahay dabka in dadku waxa weeye dabka hadii qof dab ku shidan iyo ku yahay dabkan ku shidan si waana siisa automatically adan ka yibin biyaha waa la mid qof haraadan ama xoolihiisa haraadan haduu ku yimaado adan ceel ama biyahasta waana biyahana waa la wada leeyahay waana siisa daaqana waa la wada leeyahay marka saddexda diintu waxay leedahay lama seereyn karo saddexda waa la wada leeyahay dawladdu si kale uga shaqeyn karaan ama administration si kale uga shaqeyn karaan oo dadkay environment-iga badbaadin karaan oo dadka oran karaan maanta dhinacan daaqa tala soo jeedin bay ku leeyihiin laakiin inay xiraan oo sayreeyaan waa xaraam xagga diinta
كلابات international law مركز سوف فري عند اليونيون نيشن وحنا كسوهلا إنه بيهايبا illegal إلا سميه بوحاسي أو شرعي كوري من against the law وياي وحنا كسبوا بيان وحاسي وكنا أنا relocation بوكنا بدهن قد بدن بيورت دهن لكن أنت إنك أنفعله بيكون ديدين هنا اليونيون شكل كود ديدي بقى relocation بوكنا وحقولين دتك مركز مال السيريو دتك indigenous كها إمش هادجنا أصل كها أن أود كفائدة سنة فرصة قالقة waxaan taageero iyo soo dhaweyn iyo mahadnaq ballaaran u muujinaynaa dhammaan shirki ka dhacay magaalada Yogoori dhawaan shirkaas ay isugu yimaadeen garaadka cuqaasha waxgaradka xoolo dhaqatada iyo dhammaan dadka degan eeriyadaas anagoo ka ah xubin kamid ah qurba joogta jaamacsiyaad waxaanu taageero buuxda ku taageeraynaa shirkaas waxaanu leenahay anagoo ay tahay inaanu dhinacayaga ama codkayaga ama qaybteeda ka dhiibano waxaanu taageersanahay shirkaas waana shir muhiim ah waxay dadkaasi dareenkooda ku cabireen inaanay ogolayn haba yaraatee seere laga sameeyo dhulkooda meel naba waxay taageero ku muujiyeen dadkaasi inay wada jir ku yihiin inaanay ogolayn annana haddaanu nahay qurba joogta waxaan leenahay waxaanu faraynaa beesha jaamacsiyaad dhulkeenu inuu yahay dhaxalkii awoowayaasheen ay inooga tageen dhaxalkaas inaguna waxaynu uga tegaynaa ubadkeena ومحمود سليمان وركة تلفزيون عالمي SOMNY TV